السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ولا لها دعوة فأنا فكر إن شاء الله وحن بلعب دونا تحنا نقول إيه دونا كنت كسرود إيه كينين ومدة صومالية فقري كبحويده وحن إن شاء الله مقال كان ما أنت وهرع وحن نتلاقي دونا فقري يهون تنمي حكي الدين الإسلام كويس تكتي. وهرين دعوة فقري قنمدو ولا وشأوا إلهي كانوا لأنتنا نشوح معنا ميالتين هددتكو دقنيهين داعي wax u baahan ma jirteen saadaraadna wax macnaan nolosha ma yeelateen taalidii hadadku faqir yihiin dadka oo dhan faqriga ay u dhiman lahaayeen oo ma jirneenba marka qaanuunka faqrnimadii qanimadu waa qaanuun ay noloshana ku beesgareysan tahay taa macnaheedu waxa weeye qofka qaniga ah ilaahay xoolo siiyay hanti siiyay waxa lagu itixaamay xoolihiisa iyo hantidiisa in uu mar uun dadka fuqarada wax gaarsiiyo ama wax siiyo taa dhigeedana qofka faqirka ilaahay uu ku itixaamay faqrigiisa waxa lagu itixaamay inuu mar uun sabir u yeesho faqriga iyo dhibta haysatay uu ku jiro marka waxaan oran karnaa qanimada iyo faqrnimaduba labaduba waa qaanuun ay noloshana ku tiirsan tahay waxa kale ay xusid mudan in qof walba oo xurriyad buuxda haysto inuu qani noqdo ama inuu faqir noqdo taa macnaheedu waxa weeye qof walba way codahay laba dariiq ee kala ah dariiqa faqriga iyo dariiqa qanimada maxaa yeelay dariiqa faqriga waa dariiq cad oo sababihiisa wata ka qanimaduna waa mid cad oo sababihiisa wata ninka lagu tilmaamo dadka ugu qaniisan ee adduunka ee loo yaqaan Bill Gates ayaa waxa uu yiri haddii aad doonato adoo faqri ah taa wax dambiye ku malihid laakiin haddii aad dhimato adoo wali faqri ku jira taas ay dambi ku leedahay waa laga fiican yahay nin gaala inaan hadalkiisa daliil ka dhigano laakiin qaalku way xikmad leh ee uu ku dhawaaqo ee aan diinteena ka hor imanin waa laga qaadan karaa marka xikmada kor ku xusan waxay macnaheedu tahay waad dhalan kartaa iyadoo waalidiinta ay faqri ku jiraan laakiin waxa lagaaga baahan yahay in aad ku sii nagaadin faqriga oo aad ka gunto taasaad faqriga uga bixi lahayd oo aad u gunto taas aad hanti u gaarleyd tusaale ka hadeen soo qaadano qofku uu dhashay isagoo wax ajaray dambi mid toona shaqaysan taasina ma dambi uu soo galay laakiin waa qaanuunku ilaahay noloshan uu dajiyay laakiin haddii uu dhinto isagoo wax ajar aan shaqaysan taas ayaa uu dambi ku leeyahay oo dhakadiisa saaran waa fikir qaldan in qadarka ilaahay aan u daliishano faqirnimadeena aynu dhahno ilaahay bay noo qoray waa run ilaahay bay noo qoray laakiin waxa sida la oran karaa markaan sababta oo dhan la nimaadno haddana aan waxba ku helin laakiin inaga oo iska fadhina oo farna aan dhaqaajin haddana aan ku meeraysanna qadarka ilaahay taas ma aha mid diinta islaamka ka helaysa inta badan waxa dhacda qofka sababta la yimaada oo dadaala in aanu ilaahay hoojin sida uu ilaahay quraankiisa ku dhahday fa inna allaha la yudii'u ajra al-muhsiniin markaynu eegno dunida ku noolnahay waxay u kala qaybsataa laba qaybood dunia xagga dhaqaalaha ka hor martay ee mid xagga dhaqaalaha kadib dhacday waxaana lagu sabayn karaa dad ku kala nool labada duniyood oo aad u kala duwan waxa kale ee ah in la tilmaamo in qannimada diinteena islaamku ay soo dhaweysay xagga faqrnimada diinteena islaamku ay ka digtay sidii nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay isagoo ilaahay ka magan geli jiray waxaanu oran jiray Allahumma inni a'uudu bika min al-kufri wal faqr faqrigu waxa uu bulshada ku keenaa waxyaabo fara badan sida tuugada qof marka uu wax waayo waxa uu isku dayaa in uu waxado dumarka jirkooda ka ganacsada waxay ka mid tahay waxyaabaha uu keeno faqrigu baryada iyo dawarsiga waxa sidoo kale keena faqriga sidoo kalena burcadnimada waxa keena faqriga iyo waxyaabo kale oo fara badan ayuu u keenaa faqrigu waxa taalidkeeda qannimada marka xoolaha la maamulo sidoo ilaahay raali ka yahay waxa ka dhashay khayr fara badan inaan bulshadu faqiirba ku dhex noolaan